kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamij aan ugu magac darnay murti ama maahmaah iyo sheekadeed. waxaan maanta soo qaadanaynaa qaybtii koowaad ee aynu ugu magac darnay maahmaahda iyo murtida iyo sheekadeed. sidaynu ognahay murtida iyo maahmaahyadu waa wax maalin walba la adeegsado oo nolosha ku milan ama ku lifaaqan. haddana in badan oo iyaga ka mid ihi waxay leeyihiin dhacdooyin iyo sheeko iyo taariikho ay isir iyo ab u leeyihiin oo markaa la garanayo oo la sheegi karo oo markaa taariikhdooda lagu aroorin karo. marka murtidan iyo sheekadeeda ama maahmaahdan iyo sheekadeedeen maanta qaybta koowaad soo qaadanaya barnaamijkeena waxay tahay xaajo dhan waa ka xusul dhanna waa ka taako. sidaynu ognahay xaajada ama garta markay arrini dhacdo arrintaa xalkeeda aadamigay u taallaa. dadkii bulshadii ay ka dhex dhacday ayay u taallaa. maxaa yeelay hadday dhibaato dhacdo haddii la xallin waayo dhibaatada markaa waxay noqonaysaa way sii ballaaranaysaayoo dhibaatooyin badan oo kale ayaa ka ratibmaya. tusaale ahaan haddii dagaal dhaco oo dagaalkii la xallin waayo oo nabad laga dhigi waayo waxaa ku xirmaya oo kasii farcamaya oo ka dhalanaya dhibaatooyin kale oo cudurro leh oo macaluul leh oo hooyla-aan leh oo qax leh oo barakac leh oo isnacayb leh oo midnimo xumo leh. dagaalkii dhacay bay intaa marka ayay kasii dhalanayaan. marka sidaa darteed baa waxaa la yidhaahdaa mar walba oo dhibaato ay dhacdo waxaa loo baahan yahay aadamiga mas-uuliyadda koowaad ee saaran waxa weeye inuu xalliyo dhibaatada inuu xalliyo waa mas-uuliyadda koowaad ee aadamiga saaran. haddii kale waxaa markaa uu gabayaa bini aadamkii mas-uuliyaddii alle uu saaray ee ahayd inuu khaliif ama mas-uul ka yahay dhulka. marka xaajo ama gar markaa la xalinaya marka geedka la wada fadhiye dadkii ay ka wada hadlayaan la doonaya in la maareeyo sida ay dadka u kala arkaan dhanna waa ka xusul baa la yidhi oo way ka fogtahay xalkeedu wuu ka adag yahay. dhanna waa ka taako oo way ka dhowdahay baa la yidhi oo waa laga xallin karaa. waa aragtida iyo caqliga bini aadamka. maxaa yeelay waxay kaloo soomaalidu tiraahdaa xaajo nin la toosan baa nin la tuur leh. arrin adiga kula toosan oo kula fudud ayaa qof kale la qalloocan oo dhibaato la-ah. marka sidaa darteed baa waxaa la yidhahdaa xaajo dhan waa ka xusul oo way ka dhibaato badan tahay in la xalliyo. xusulkana waa dhudhun oo way ka dhibaato badan tahay in la xalliyo quus bay ka tahay. dhanna waa ka taakoo way ka sahlan tahay marka la arko oo waa wax la xallin karoo aada u fudud bay ka tahay. waxayna ku xidhan tahay aragtida dadka iyo garashadooda way ku xidhan tahay. waxay kaloo ku xidhan tahay rabitaanka iyo doonista dadkaas siday nabad iyo heshiis u doonayaanna way ku xidhan tahay. marka sidaa darteed baa waxaa la yidhaahdaa waxaa had ii jeeraale wanaagsan in arin markuu dhaco laga qeybgeliyo dadka indheer garadka ah ama waayeelka ah ama raagaaga ah ama in badan xaajooyin noocaas oo kale soo falay oo ku soo jiray in loo ururiyo oo la dhex dhigo ayay u baahan tahay. maxaa taa loo yeelayaa? taa waxaa loo yeelayaa waxaa la doonayaa xaajadaa inaynan dhudhun noqon iyo wax ka dheere ee markaa ay taa ka noqoto oo aragti kooban oo si wanaagsan loo arko la xallin karo in loo arkaa loo doonaya. maxaa yeelay dadka qaar baa markaa tiraa war arrintan dhibaatadanaa dhacday ayaa markaa waxaa la yidhaahdaa dhibaatadanaa dhacday marka la yidhaahdo dad baa odhanaya sideebaa lagu xallinaya. waxaa la yidhi ninbaa waxaa la yidhi lagu yidhi ninbaa sodohdii dharbaaxay ayaa lagu yidhi. markuu sodohdii dharbaaxay
ayaa markaa waxaa la yidhi baa la yidhi ninkii sadohdii dharbaaxay weeyaane markii loo sheegay dadkii baa nin walba afka u qabsadoo yidhi ninkaa waa ceeboobay wuu dhaqan guuray wuu dhalan rugmay waxaan la xallin karin iyo xaaje aan ugubahon hore loo arag buu sameeyey masadohdii buu dharbaaxay dadkii deegaanka intii badnayd ee markaa arrinta loo soo bandhigay waxa weeyaan aad bay uga weyigeenoo way ka markaa ka gilgisheen arrintaa waxay yidhahdeen wax la geli karo ama xal loo heli kara maaha marka nin kaloo socoto ahaayo meesha yimid baa wuxuu yidhi baa la yidhi maxaa arrintii marka loo bandhigay baa wuxuu yidhi baa la yidhi sodohda ninka ma aha ninka waxa gar darane waa sodohda maxaa yeelay meel wiilkii sodohda ay u ahayd uu ka dharbaaxay maxaa iyada keenay inay ka fogaatay ahayd bal eeg hadda muxuu sodohdii u dharbaaxay iyo sodohda maxaa u soo dhoweeyey wiilka waa kala laba dhinac marka xaaje dhan waa ka xusun dhanna waa ka taakay ogow marka haddaan macnaha guud aan intaa markaa iraahdo waxaan marka soo qaadanayaa sheeko ayaan soo qaadanayaa sheekaan soo qaadanayaa beri baa waxaa la yidhi nin iyo haweeney ay isguursadeen markay isguursadeen baa waxaa la yidhi wakti badan ayay caruur isu yeelan waayeen markay markaa caruurta isu yeelan waayeen ayuu markii dambe ninkii ilaa xaaskiisii wuu jeceliyay iyadana way jecesha ninkeeda ilaahay bay ka duraanteen oo ay ka baryeen in ilaahay ubad siiyo ninka markaa si hoose ayuu nidir u galay oo wuxuu yidhi ilaahayow haddaad ubad isiiso ilmaha ugu hore markay dhasho waxaan markaa u qali doonaayoon markaa ugu walqali doonaa wan baridiisu ay laba dhudhun tahay wan baridiisu ay laba dhudhun tahay hadda waa laba dhudhun ay tahay weyni wuxuu ka qabo wankaa ayaan ugu walqali doonaa ubadka marka nidirkaa ayaan ilaahu kuu galay ubad isii marka waxaana la yidhaahdaa ducada midda kor loo sheego iyo midda niyadda hoos loo ducaysto aad ilaahay looga baryo midda qalbiga hoose oo keligaa iyo adigu ilaahay aada isogtihiin baa aada u aqbal badan baa la yidhi markaasaa ilaahay waa wadaawada wixii laga baryana wuu yeelaaye ninkii waxaa la yidhi markaa islaantii uur bay u yeelatay markay uur u yeelatay buu aada u farxay wuu u shintiriyey 9keedii bilood markuu sidkeedii dhammaadayna waxay u dhashay wiil markay markaa wiilkii u dhashay markaa ilaahay markaa wixii laga baryey wuu ka soo baxay marka nidirkii baa ninkii loo baahan yahay marka inuu oofiyo meel walba haddii uu maray waxa markaa uu waayey wan baridiisu ay laba dhudhun tahay dadkii deegaanku la tashaday war nidirkaasaan galayen culimadii buu la tashaday markaasaa la yidhi nidirka waa inaad oofiso waa oofin uu nidirku markaasaa la yidhi haddaba maxaan yeelnaa markaasaa waxaa la yidhi waxaan anagu yeelayna ma gala adaa nidir adag galay waxaan runtii aan ku nidhaahno garan mayna raadi wankaa meel walba adduunka habeenkii dambaa waxaa la yidhi nin musaafiroo socota ayaa usoo martiyey ninkii laftiisi markuu si wanaagsan markaa uu u sooray ayaa wuxuu u sheego uga sheekeeyey baa layidhi wixii uu ku nidray iyo dhibaatada haysata iyo welwelka haysta xoolana wuu buuxaa laakiin xoolihii waa la xallin la-ay nidirkii baa la furi la-ay markaasuu ninkii martida ahaayoo nin aada u caqli badanoo garab badan iyo arrimo badan dhacdooyin soo joogay ahaa ayuu yidhi arrintaada way sahlan tahay waxaad yeelaysaa waaga haynoo bariyo markaasaa waagii markuu bariyey ayuu wuxuu yidhi wanka arigaaga idahaaga ku jira midka ugu weyn keen markaasuu keenay wiilka kuu dhashayna soo qabuu yidhi keen wuu u keenay wiilkii dhudhunkiisa ayuu wankii baridiisa ku taakeeyey wiilkii xala dhashay laba dhudhun maaha 3 dhudhun buu noqonayaa wanka weyn baridiisa markaasuu yidhi haddaba wakaa waad furtay nidirkaagii sidaasuu ku furay oo wan baridiisu laba dhudhun tahay ilaa dhudhunkayga maad oran dhudhun hebelna maad oran wax kalena maad sheegine waxaad un tiri wan baridiisu laba dhudhun tahay labadii dhudhunna wiilkaas xalay kuu dhashay baa markaa yaad ku oofinaysaa nidirkiina markaa sidaasu yaad ku fulisay wankiina wuu halkiiba ku gowracay maalintii qado wanaagsan ayaa meeshii ninka martida ahaa iyo qoyskii oo dhanba lagu cunay marka bal eeg xaajo dhan waa ka xusul dhanna waa ka taako marka waxaan doonaynaa oy tahay ujeeddada aan u soo qaadanay marka maahmaahda aan u soo qaadanay waxaa weeye faa'iidooyin badan baa ku jira maahmaahda
faa'iidooyinka badan ee ku jira waxa weeyaan arrimaha in dadka loo badsado dhacdo hadday dhacdo inaan la isku koobin dad loo badsado dhacdooyinka in loo xulo dadka mansabka u leh ama ehelka u ah in loo xulo caqliga iyo garaadka iyo kasmada iyo leh in loo xulo oo dadkaa la dhex dhigo ayaa iyadana ah midda labaadee iyadana aad yaa u wanaagsan waxaa kaloon aad uga faa'iidaysanaynaa waxa weeyaan murtidan ama mahmaahdan waxaan kaloo ka faa'iidaysanaynaa wax suurtagala inaanay jirin oo bini aadamka ka dhexdhaca wax kasta oo dhaco oo dhib badan xal bay leeyihiin waa in la xalliya xal loo helaa laakiin haddaad tidhahdo waxaan wax la arkoo la maqlay ma aha haddaad tidhahdo lama xallin karo dhibaatadii aadamiga marka waxay noqonaysaa mid maalo loo waayay noqonaysaa marka inaad horta niyadda gashato wax kasta oo qaracan ah oo lagu soo sheego inaad intaad isdejiso aad tidhahdo xal baa loo helayaa wax walba xal bay leeyihiin inaad tidhahdo iyadan waa loo baahaya oodna ogaato xaajo hadday dhinac kaaga adag tahay ama ay kuula muuqato adigu inay adag tahay inay dhinacyo kale ay leedahay ay ka fududahay xaajadaayoo laga xallin karana inaad ogaato sida aad isku dejiso oo aad ku miir lahaatana waa loo baahayay daawadayaal barnaamijkeenniina halkaa inoo joogo